شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن sidaad arkaysaan guriga naga dambeeyo waa iskoolkii magaaladaas intaa muxsiniin baa soo gaarsiisay halkaasaa kharashkii nooga go'ay intii ka dambaysay codsi fara badan baan bixinnay noolama soo jawaabin inta badan hadday dawlad tahay iyo haddii ay tahay maxaan ku dhahaya hay-ad haddana ka cajisi mayne codsigii baan haddana wadnaa dal iyo dibad soomaalida joogto muxsiniinta hadday hay-ad leeyihiin hadday dawlad ku jiraan hadday shakhsi asaga jiefkiisa ay tahay waxaan ka codsanaynaa cod dheer iyo cod gaabanba in noola dhammaystiro iskoolkaas in noola dhammaystiro maxaa yeelay ilmo waxaa joogaan halka arday ilaa 300 oo canug waa joogaan tuulada way ku wada barasho la'yihiin xagga qur'aanka alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin way ka dhisan yihiinoo dugsigaas uu taagan yahay ilaa maalintii aan aas-aasnay iyo maanta meesha hadda tuulada ay ka waxaysan tahay waxaa waaye barashadii iskoolkii yaan ka dayacannahay aad kii horreeyena waaye iskool laga dhisa waa kii ugu horreeyey mid labaad ma laha nama soo marin waxaan aad u codsanaynaa cod dheer iyo cod gaabanba muxsiniintiyey soomaalida sidaan horey u sheegay hadduu dawlad ku jiro iyo hadduu hay-ad hor socdo iyo haddii jeebkiisa keligiis ay tahay codsigeennaa sida u degdeg badan in noogala soo jawaabo insha allahu tacaalaa waxaan joognaa dooxa garsay oo ah xaafad ka mid a magaalada goobweyn intaa dabadeed waxa aan taagannahay waxaa weeye iskoolkii koowaad oo laga dhiso oo ay muxsiniin halkaa soo gaadhsiiso kuna go'ay meeshaad arkaysaan kaasoo 4 aqwal ah markaas walaalaha muxsiniinta meel kastay joogaan iyo makaan kastay ku sugan yihiin ba waxaan ka codsanhaynaa inay noogu soo caawiyaan oo noo soo dhisaan iskoolkaas khayr Allah ha siiyo iskoolka inay noo soo eebiyaan ayaan ka codsanhaynaa meel kasta ay joogaan Allah idin gargaaro cod gaaban iyo cod dheer sida uu sheegay sheekha igu horeeyay Sheekh Yuusuf waxaan rabnaa inaad sida ugu qasta badan walaalaha ay noogu soo gargaartaan oo iskoolkaas awlaadiina ugu soo dhigtaan walaalaha aad maartay walaalaha idin walaalihiin ah iskoolkii ugu horeeyayna weeye iskoolka horeeyay ma jiro walaalayaal waxaan rabnaa inaad noo dhagawaatiin arintayna aad qaadatiin Allah idin barakeeyo albaabkaad qaraxdiin ba Allah idin furo khayr Allah idin ku furo walaalayaalow waa idin soo duceynaynaa tolkiyo Soomaalida Ilaahay oo muxsiniinta wanaagsanooy noo soo dhameeytira walaalayaal si dhaqsi noogu soo dhameeytira haddii Ilaahay yiraahdo albaabkaad qaraxdiin ba Allah idin barakeeyo